الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسر هذا جنرال كبادي سوق مقعي وحسن نور محمد كسر هذا موضوع maanta waxaan ka hadli doonaa kheyraadka yaalla dalkeena Soomaaliya iyo siyaabaha aan uga faa'iideysan karno. Soomaaliya oo ku taala geeska Afrika waa dal ka mid ah dalalka ku yaalla qaaradda ee ku manaystay noocyada kala duwan ee kheyraadka dabiiciga ah. Dalkeena waxa uu leeyahay kheyraad dabiici ah oo ah kuwa ugu muhiimsan ee maanta caalamku faa'iidooyinka ugu badan uu ka sameeyo, kuwaas oo kala ah ganacsiyada dhanka ama kheyraadka dhanka badda, dhanka kalluumaysiga iyo waliba xoolaha nool. Soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa in badda Soomaaliya ay ku fidayso in ka badan 3,330 kiiloomitir. Sidoo kalena Soomaaliya waxa ay leedahay dhul beereed aad u baaxad weyn kaas oo lagu qiyaaso in uu gaarayo 8.9 milyan oo hektar. waxaan sidoo kale leenahay ama la sheegaa in Soomaaliya ay leedahay petrol kaasoo lagu qiyaasay in ay ku jiraan ama laga heli karo Soomaaliya 30 bilyan oo barmiil ama fuusto oo gaas ah ama saliid ah. Dhammaan kheyraadkaasi maanta Soomaalidu ay ka baahan tahay. waxaana wax cajiib ah in Soomaaliya marka laga hadlayo macluusha, marka laga hadlayo xaaladaha kala duwan ee saameynta isbeddelka cimilada, marka laga hadlayo dib u dhaca ama burburka dhanka ganacsiga kaabayaasha dhaqaalaha in ay kaalmaha hore ku tartanto. haddaba su-aasha isweydiinta la ayaa waxay tahay dalkeena oo intaasoo kheyraada eeba ku manaystay maxay tahay caqabadda inaga hortaagan inaan la soo baxno kana faa'iidaysano. mawduuca ayaan uga hadlaynaa. daawadayaal, qarniga aan maanta ku jirno dunida waxa ay ku tartamaysaa tiknoolajiyad, waxaana lagu kala horumaray ganacsi. maanta waxaan ognahay dalal ku yaalla qaarado kale ayaa waxa ay adeegyadooda kugu soo gaarsiinayaan maalmo gudahood, iyadoo si aad ah caalamka uga faa'iidaystay aaladaha casriga ah ee internetka. ganacsigii maanta waa uu ka gudbay midkii gacanta inta lagu qaado qofka gacanta looga dhiibi jiray. waxa uu marayaa maanta mid la adeegsanayo tiknoolajiyad oo adigoo gurigaaga joogo oo waddan kale joogo in adeegii aad dalbatay uu dalkaas kale kaaga yimaado, waliba kugu soo gaaro waqtiga ugu dhow, iyadoo waqtiga lagu soo gaarsiinayo qofka ay jiraan shirkado ku tartama in hataa maanta ay marayso in saacado gudahood lagu helo dalabkaagii aad dal kale ka dalbatay. arrimahaas oo dhan waxa ay fududeeyeen ganacsiga, waxa ayna sare u qaadeen fursadihii ganacsi ee ka jiray guud ahaan caalamka. sanad walba waxaa soo baxa dhalinyar ama ganacsato da'yar kuwaasoo faa'iidooyin aad u weyn ka sameeya ganacsiga dhanka online-ka ah iyo weliba ganacsiga kale ee wax soo saarka dalalkooda. waxaa xusid mudan in dalkeena Soomaaliya maanta fursadahaas uu ka qatan yahay, ayna aad u yartahay dhalinyarada fursadaha ganacsi ee abuurka ah inta sameeyaan ku baahiya caalamka, bal iska badaa inaan caalamka kale wax gaarsiinay hataa aan awoodi la'nahay in kheyraadkii dalkeena aan ka faa'iidaysano oo aan meel gaarsiino. inta badan dadka ganacsiga horumarka gaaray marka ay talooyin siinayaan dadka kale ee ganacsatada bilowga ah waxa ay kala hadlaan dhowr qodob. waxaase ugu muhiimsan in qofka ganacsadaha bilowga marka hore uu leeyahay riyadiisana ay tahay mid leh hiigsi fog oo aysan ahayn mid ku eg maalin iyo labo xaafad, magaalo ama dal, balse ay tahay riyo fog oo uu doonayo in globally ama si guud caalamka uu gaarsiiyo waxa markaas uu gacanta ku hayo. riyadaasi ayaa waxay qofka u suura gelinaysaa inuu gaaro meel uusan isaga xitaa ku fikiraynin inuu gaari karo. inta badan ganacsatada maanta adduunka meelaha sare ka gaaray halkaa ayay kasoo bilaabeen. waxaa xusid mudan ganacsadaha weyn ee Jack Ma ee ka mid ah aasaasiyaashii shirkadda Alibaba, mar uu khudbad jeedinaya waxa uu sheegay markii uu shirkadaasi aasaasayay oo shirkadaas aan ognahay in adeegyada ugu badan ay samayso ay tahay mid online ah, in dalka Shiinaha uusan gabi ahaanba ka jirin internet. It was such a terrible speed at that time of using internet. You know, when I started my business 1994 for the internet, I invite a lot of people say Jack is telling a lie. There is no such thing called internet. I went to register my company, and in the company registering office, people say, "What kind of a company you want to do?" I said, "Hanzhou Internet Consulting Company." He said, "Internet? There is no such word in the dictionary." They cannot register the company.
And China was not connected to the internet the day when I registered my company. 3 months later, China was connected to the internet. So in order to prove that I was not a liar, I invited TV people came to my room. We waited 3 hours and a half to download the first front page. And that was true, right? sanadkii 1994 waxa uu xusay hal abuurkoodu inuusan ahayn xilligaasi balse uu ahaa mid ay doonayeen in sanado badan kadib ay caalamka gaarsiiyaan sida ay maanta sameeyeen oo shirkadooda ay ka mid tahay shirkadaha ugu waaweyn ee maanta horumarka ka gaaray dhanka ganacsiga online-ka waxa uu xusay in xilligaasi dadka markay u sheegaan in aalad internet ay ku shaqeynayaan oo ay doonayaan ganacsi noocaas inay bilaabaan inay ahayd wax lagu qoslo ay dadku kula yaabi jireen balse markii ay riyadoodii rumowday maanta dad aad u tiro badan oo jaamacado kala duwan ka soo baxay ay tartan ugu jiraan inay shaqaale u noqdaan shirkadda Alibaba waxa uu yiri haddii ay riyadaadu tahay mid bil ama sanad ku eg way adag tahay inaad guul gaarto sababtoo ah sanad bil ama sanad qof walba ayaa guulaysto ku noqon kara balse waxa uu xusay in haddii riyadaadu ay tahay mid 10 sano kadib ugu yaraan inaad ka guul gaarto ama aad meel ku gaarto ay tahay inay noqonayso mid guulaysata maxaa yeelay aragtida ayaa fog dadaalkaagana waxa uu noqonayaa mid aragtidaasi fog ku salaysan mana noqonayo mid aad ka caajisto oo haddii mar iyo laba iyo saddex aad guul dareysato kugu hago inaad meesha uga harto ganacsina sidiisoo marka la bilaabayo marka ugu horeyso faa'iido lagama fisho laakiin waxa uu u baahan yahay waqti iyo dadaal in la geliyo si meel sare loo gaarsiiyo haddaan dib ugu soo laabto mawduuca dalkeenna maanta fursado aad u weyn ayaa ka jiro waxaan leenahay marka laga sugtay kheyraadkaas aan soo sheegnay xoolaha nool kalluumaysiga iyo beeraha sidoo kale fursado kale oo aad u badan ayaa dalka ka jiro oo Soomaaliya wax soo saar kala duwan ayaa leedahay waxaan ognahay dalkeena waxa uu dhoofin jiray dalagyo kala duwan oo dhulka ka soo baxa sidoo kale dalkeena waxa uu lahaa warshado kala duwan oo wax soo saar badan dalka u lahaa sida warshadii hilibka warshadii kalluunka sokorta iyo warshado kale aad u badan oo aanan halkan ku soo koobi karin dhammaantood waxa ay ku burbureen dagaaladii sokeeye ee dalka Soomaaliya waxaan isla qirsanahay Soomaaliya maanta fursadaha yaallo iyo kheyraadka ee ku manaystay inay yihiin kuwa aad u baaxad weyn haddana waxaan isla qirsanahay xayndaabka ku gudban inaan u tallaabno horumarkaasi oo aan tartan la galno dunida maanta ku tartamayso online-ka iyo ganacsiga iyo weliba horumarkana maalinta ka dambaysa meel kale sii gaarayso maanta ognahay aaladda AI-ga inay soo baxday oo hataa laga sii gudbayo waxyaabo badan oo qof ama shakhsi uu samayn jiray in aan ka qatannahay xayndaabka naga hortaagan inay tahay hal shay oo aan aniga aaminsanahay laga yaaba qaarkiin aaminsantiin oo ah inaan annaga ka Soomaali ahaan aan caalamka kale uga duwannahay waxa la yiraahdo qabyaalada maanta qofka Soomaaliga uu doonayo qabiilkiisa inuu qaran noqdo qabiilkiisa inuu meel gaaro qabiilkiisa uu wax ku noqdo qabiilkiisa inuu saan taasoo dhab ahaan aan isleeyahay suuragalka ma aha marka loo fikiro sida maanta caalamka u fikirayo waxaan wax ku noqon karnaa meel ku gaari karnaa horumarna ku higsan karnaa dunida kalena kula tartami karnaa in aqoonsiga dhabta ah anaga naloo yaqaano aan anaga isugu aqoonsano sababtoo maanta marka qof ajnabi ah adiga Soomaaliya hor taagan tahay reehbal kuma yaqaano laakiin wuxuu ku yaqaanaa Soomaalinimada inay noqoto meesha ugu dambeyso ee aan ku abtirsano taas ayaa markaa waxay laabteena ka saari kartaa xuquuqdad badan oo naga hortaagan in maanta aan tartan xor galno oo aan kheyraadka dalkeena la soo baxno qofka walaalka ah ee maanta horumarka ama higsiga leh qabiilku doon ha ahaado hadduuba Soomaali yahay inaad ku garab siiso oo aad garab istaagto haddii fursadda adiga ah sidaas si lamid ah in lagu garab siiyo taas ayaa waxaan ku gaari karnaa horumar taas ayaa wadajirkeena iyo wada socoshadeena ku xoogaysan kartaa taas ayaa xayndaabkan adag ee naga hortaagan horumarka kaga tallaabi karnaa taasna ayaa noqon karta halka aan maanta kula tartanno dunida kale ee maanta ku tartamaysa horumarka waxaan rabaa qodob kale inaan halkan uga sii faa'iideysto Soomaaliya waxaa la yiraahdaa 70 in ka badan 73% dadkeedu waa dhalinyaro dhalinyartana waxaan ognahay awoodda maanta caalamka waa dhalinyar qofka dhalinyarta ah waxa uu awoodaa wax ka badan qofka da'da waxa uu awoodi karo taasna waxa ay fursad gaar ah u sii tahay dalkeena maadaama dhalinyar aad u tiro badan aan leenahay waxaan haysanaa awood aan wax ku soo saari karno
awood aan fursado ganacsi oo badan ku abuuri karno, awood aan dhalinyartan intooda badan shaqo la'aanta ah ee meelaha iska fadhiyo ee qaarkood caalamka kale fursadaha u raadsanaya ee dalkii ka niyijabay aan ugu abuuri karno fursado ay markaas ku horumariyaan noloshooda, annagana uga faa'iidaysan karno. haddii marka awooddaasi aan ka faa'iidaysano dhallinyaranimadeenna waxaan gaari karnaa ama aan si degdeg ku gaari karnaa meel aad u sareyso. si gaar ah waxaan ognahay dadka Soomaaliyeed waxaa lagu tilmaamaa marka laga hadlayo ganacsiga dadka ugu firfircoon caalamka oo dalalka Soomaalida ay qaxootiga ku aad ama ku barakacday waxaa inta badan iyagoo laga yaabo hataa aqoontii basic inaysan ka dhisnayn oo aysan ganacsi wax badan ka fahansaneyn, haddana waa dad isku day ganacsi leh, waa dad hal abuur leh, waa dad jecel inay wax bilaabaan oo isku tashi isku filnaansho ay gaaraan. dadkeena dhibaatooyinkii dhacay ee marxaladaha kala duwan soo jiray mar walbaba dad ka mid ah ayay dadku ku tiirsanayeen. waxaa laga yaabaa qoys dhan oo dalkii ku nool in hal qof oo ka mid ah oo fursad un abuuray ama dadaal sameeyey inay dhammaan qoyskaasi ku nool yihiin, ku jiifaan, ku tirsanayaan. taasna waa kartida iyo dadnimada ilaahay dadkeena Soomaaliyeed siiyey, taasoo aan kaga duwannahay ummadan badan oo caalamka ah inaan nahay dad istaageero iska warqabiso. laakiin waxa kaliya ay maanta u baahannahay inay tahay inaan laabteenna sifeyno waxyaabaha kuwii naga horreeyay ay ku fashilmeen dalka 30 sano oo colaad iyo burbur iyo dubudhaca kusoo jira ee qabyaaladda ah, inaan ka waantoowno, aan ka korno, qalbigeena uu noqdo mid nadiifa, mid hiigsi leh, mid u jihaysta dhanka horumarka, mid u jihaysta dhanka wanaagsan. sababtoo ah Allah subxaanahu wa tacaala waxa uuna farayaa maalka adduunka yaal oo dhan Allah iska leh, waxa uuna siiyaa addoommadiisa, waana imtixaan oo qofka ama uu ku fidnoobaa ama wuxuu noqdaa qof ilaahay ugu xamdiya. haddiise waxaa lanoo sheegay aan waxa ilaahayna siiya ama ganacsigeenna aan si cadaalad ah oo run ah aan ugu shaqaysano ama u abuurno in ilaahay inoo barakeynayo oo aan meel wanaagsan gaarin. marka ganacsiga iyo fursadaha mar walba waa kuwa ilaahay barakeeyo hadday yihiin kuwa alla raalli ka yahay oo qofka muslimka ah markaas ganacsiga bilaabin uu aaminsan yahay in maalka maanta uu haysto uu yahay xag ilaahay ka imaana. haddii uu khasaaro la kulmana ay tahay mid uu ku samro oo waan ognahay sabarka mid ka mid ah tiirarka ay ku taagan yahay qofka iimaanka qofka muslimka ah. daawadayaal inta ayaan kusoo gabagabeynayaa qaybtaas yar ee dhiirigelinta ah ee fursadaha ganacsi ee dalkeena yaala sida uga faa'iidaysan karno. waxaan insha Allah diiradda saari doonaa mawduucyo kala duwan oo aan si gaara ugu dul istaagi doono hadba meelaha ay fursadaha ka jiraan ee dalkeena, anagoo bidhaamin doono, anagoo kaashanayna dadka aqoonta iyo khibradda u leh. waxaan soo gudbin doonaa fursado aan isleenahay dadkeena way ka faa'iidaysan karaan, wayna maalgashan karaan. aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin daawashadiina. tani intaan ku kulmi doono muuqaalka xiga. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.